siyaasiga madaxa bannaan ee Maxamed Xasan Dirin iyo wafdiga hogaaminaya ayaa deeq bustayaal gaarsiiyay deegaanka Gacan Libaax gaar ahaan magaalada Godaweyn. deeqdaasi bustayaasha ah ayaa siyaasigu ugu talagalay dadka jilicsan ee deegaankaasi waxaana ku wareejiyay odayaasha magaaladaasi Godaweyn iyagoona dhankooda uga mahadnaqay deeqdaasi bustayaasha ah ee uu soo gaarsiiyay siyaasiga da'da leh Maxamed Xasan Dirin bustayaashan uu degmada Godaweyn u keenay siday tahay horta boqolkiiba 95 buu ku mahadsan yahay waxaan leenahay waayo waqtigii ay ahayd bilihii dhaxanta ayuu kula soo gudboonay anaguna haddaan odayaasha Godaweynahay waxaan u gaarsiin doonaa sidoo qofku ka jilicsan yahay waxa lagu jiraa bilihii dhaxanta waan loo baahan yahay runtii xilligeedii bay ku soo beegan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idinka guddoonay wixii kala aad keentaana insha Allah diyaar baan u nahay deeqdan aad arkaysaa waxaan noo keenay hogaamiye Maxamed Xasan Dirin uu ku mahadsan yahay marka hore Ilaahay baa mahadle marka labaadna isaga mahadle isagoo soo beegay dadka xilliyihii dhaxanta wadankan joognaa waxa weeye wadan aad hawd saraa maadaama dhaxantu aad u badantay dad jilicsan baa jooga waa wadan ballaaran dad jilicsan oo fara badan baa jooga deewaanu haddaanu nahay odayaashii degmada Godaweyn waanu ka gudoomayna halkan deeqdan waxaan soo gaarsiiyay hogaamiye Maxamed Xasan Dirin waanu ka gudoomayna haddaan odayaashii magaalada nahay iyadoo bil dhaxanta iyadoo ma garanaysaa dadka jilicsan oo loogu talagalay ay jiraan waanu ka gudoominay waxa deeqda Ilaahay baa mahadle sida mahad buu leeyay Ilaahay baa mahadle inaan ka yarana soo xusay Maxamed Xasan Dirin Ilaahay baa mahadle dadkii jilicsanaa ee magaalada Godaweyn waalidiintii soo xusay waqtiyadan dhaxanta deeqda Ilaahay noogu soo dhiibay mid ka badanna waan ka rajaynaynaa Ilaahay inuu noogu soo dhiibo isaguna haray iyo dub ha mahadsanaado aad iyo aad ha mahadsanaado annagana waa kan soo wanaajiyay deeqdan halkan waxa keenay Maxamed Xasan Dirin waana degmadii Godaweyn wuuna soo gaarsiiyay anagoo odayaashii degmada waan ka guddoonay deeqda oo halka keenay bustayaasha waana bilii dhaxanta ee qabooba ahaa waxaanu siin doonaa dadkii ugu talagalay jilicsan tahay siyaasi Maxamed Dirin oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu siyaasadda u galay sidii bulshadiisa ugu adeegi lahaa si cadaalad ah maanta waxaan joognaa degmadii Godaweyn oo aanu keenay deeq bustayaal ah oo aanu qorshahayagu ahaa in aanu 100 qoys oo deegaankan ah oo dadka jilicsan ah inaanu gaarsiino bustayaal maadaama deegaankan yahay deegaan qaboobe ah oo dhul sare ah oo dhaxan ah oo ka dhaxan badan deegaanada Soomaaliland intooda badan mabaadi'da waaweyn ee aan siyaasadda u galay waxa kamid ah inaan dadkayga waqtigayga iyo aqoontayda ku caawiyo oo aan iyaga ugu shaqeeyo xil qaran ma hayo xisbi qaranna kama tirsanay oo qaaraan urursada hay'ad samafal oo caalamiyana uma shaqeeyo shakhsi baan ahay damiirkiisu leeyahay waxa aad hayso dadkaagu ha kula wadaagaan waxa xaqiiqa siyaasiyiintii iyo bulshadu way kala aamin baxeen sababta ugu weyn waxa weeyaan siyaasiyiintu bulshada kuma soo noqdaan bulshaduna waa ta xilalka u doorata waa ta taageerta waa ta codka siisa laakiin waxaad moodaa bulshada badankeeda waxay ka cabanaysaa in siyaasigii ay dirteen ee ay codka siiyeen ee ay u hiiliyeen aanay dib u arag anigoo taa ka duulaya anigu intaanan dadka cod weydiisan inta aanan xil u qaban waxaan doonayaa inaan awoodayda shakhsiga ah dadka ku garab istaago oo ugu hiiliyo oo aan kula shaqeeyo oo aan iyaga ugu shaqeeyo si ay u aaminaan bari ka maalin markaan cod weydiisto inaan codkaasi hayn cod lumaya si haddii aan xil qaran u qabto ay u aaminaan xilka aan u qabtay inuu yahay mid iyaga loogu shaqeynayo inta ka hor waa inaan tusaa inaan iyaga u shaqeynayo Cabdisamad Jaamac Axmed Cabdisamad Kiire telefishinka Real Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida